madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalmihii u dambeeyay safar ku marayay gobolada galbeed ee Somaliland ayaa maanta soo gaadhay magaalada Gabiley halkaasi oo uu kaga qayb galayo qalin jabinta ardayda jaamacadda Timacadda ee magaalada Gabiley. madaxweynaha ayaa intii uu ku guda jiray safarkiisa waxa uu deegaanka Kalabaydh ee Boorama iyo Gabiley u dhaxeeya kula hadlay dadweyne wadada hareeraheeda tubnaa oo halkaasi ku soo dhaweeyay. waxaanu u sheegay war ku saabsan waxa deegaano badan oo ka mid ah gobolka Gabiley kuwaasi oo ay ka mid yihiin Kalabaydh ilaa Wajaale ka dhici doona sanadaha soo socda. waxaanu xusay inay culays badan wajahi doonaan marka loo eego qorshaha xukuumadda ee ku wajahan deegaanada Kalabaydh ilaa Wajaale oo ah magaalo xuduudeedka ay wadaagaan Somaliland iyo Itoobiya. reer Kalabaydh iyo reer Wajaale culays badan baa ku soo socda sanadaha soo socda. wadadii waa soo dhowdahay dekadina way ballaaratay dhulkuna waa beeraley waxaan u baahnaan doonaa dhul ballaaran oo laga dhigo free zone ama dhulka la yidhaha wuxuu ka cagan yahay cashuurta oo loo baahan yahay sanadaha soo socda dhul badan oo laga yaabo inuu idinku adag yahay oo idan ka maarmi karin baa loo baahan doonaa. waxaanu rajaynaynaa 3 sano soo socda ma 4 sano soo socda dhexdooda in loo baahdo dhul la dhigo 1 malyan oo container oo ka faaruqana la dhigo ka buuxana la dhigo isweydaartaan. shaqo way ka abuurmaysaa horumar uu ka imanayaa laakiin waxa la idin la wadaagayaa dhulka iyo dhirta iyo dariiqa iyo guryaha oo culays badan kaana waa diyaar garoobi doontaa haddii la yiraahdo. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay inay iman doonaan ganacsato badan oo ka iman doona Afrikada bilaabada ah kuwaasi oo loo baahan yahay in loo diyaar garoobo. waxaanu bulshada reer Somaliland gaar ahaan gobolka Gabiley xasuusiyay inay dhaqankooda iyo diintooda ilaashadaan maadaama oo buu yiri ay soo food leeyihiin dad haysta diimo iyo dhaqano kala duwan. waxa la idin la wadaagi doonaa iyadoo oo dadka baaxmisharka ee Afrikada xidhan ka yimaada oo dalal badana oo afaf gaar ah ku hadla oo dhaqan gaar ah leh oo iman doona isdhexgalaysaan iyo kuwa ka imanaya dhinaca badda oo halka isku weeraranayaan ay tahay ayaa sanadaha soo socda idinku soo fool leh. waxaa loo baahan yahay aqoontii iyo caqligii iyo garashadii aad uga faa'iidaysan lahaydeen dhaqankiina diintiina aad ku ilaalin lahaydeen iyo nabadgelyo dadkiina. waa hawl culus oo ku soo beegan aagga Wajaale daayartayo waayeelka baa diyaar garoow waa laga rabaa. madaxweyne Muuse Biixi ayaa shalay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal kaga qayb galay qalin jabinta ardaydii sanadkan dhamaysay jaamacadda Camuud. madaxweyne Biixi ayaa sheegay inay Somaliland ka nabad gashay waxa uu ugu yeedhay balaayada ka dhacaysa hareeraheeda waxaanu bulshada Somaliland ku amaanay isku duubni. inagoo og hareerahena waxa ka dhacaya waxa la yiraahdaa dadka waa loo dardaar wariyaado lama ictiraafin oo waa dal faqiir ah waxaas la yidhi jiray laakiin ilaahay galadii iyo dadkeena niyadoonagiisa iyo isku tashigiisa dhammaan Somaliland darafeeda iyo gudaheeda koonfur waqooyi bari ilaa galbeed xuduudaheeda markay duunka ka heshiisay oo halkay Timacadde ay qalbiga iska ducaysay ay isu damqatay ilaahayna wuu gargaaray. dabaylaha colaadada dhacaya ilaahay wuu ka nabadgeliyay abaaraha ilaahay wuu ka soo jabiyay iyagana ilaahay qalbigooda wuu isu wanaajiyay oo inkastoo bini aadam meel jooga oo isqoonsan karo haddana guud ahaan marxalad aynu dhammaanteen ilaahay ugu mahadnaqna ayaynu ku jirnaa maanta. madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay inay Somaliland haysato nimcooyinka adduunka kuwooda ugu waaweyn kuwaasi oo aanay haysan inta badan dunida horumartay. waxaa kaloo ilaahay ka mahadinaa haddaynu Somaliland nahay wuxuu ina siiyey nimcooyinka adduunka kuwa ugu waaweyn oo dalkan Somaliland dadka marka juqraafiga ay ka hadlayaan iyo culimada qaarkood waxay waa meel abaara oo roobku ku yar yahay oo dal ahaan marka loo eego dalalka waaweyn ee Mareykanka iyo Kanada dal yar ah oo dadkiisu yar yahay baa la yiraahdaa.
وحسين هاي نسي بقعد ما أنت أدون كورنا من رادنا أيه مريكان بار رادنا أيه سوماليلاند روش بار رادنا أيه تشاينا رادنا أيه عرب بار رادنا أيه أفريقيا رادنا أيه بقعد إلى هاي نرجع بداعس وإنه قيبته أقوى لنا هاي سجال بقوله كيلومتر وحمرة ganacsiga adduunyada oo dhan isku xidha boqolkiiba 25 in ka badan. madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay inay dekedda Berberi sanad kadib noqon doonto dekedda Afrika ugu weyn marka laga yimaado dekedda Durban ee Koonfurta Afrika. sidaasi awgeedna gobolka Gabiley looga baahan yahay inay diyaariyaan meeshii la dhigi lahaa ku dhawaad 1 milyan iyo bar kontiinar iyo jidkii la marin lahaa. xilka kale qaranku Gabiley ka doonaya waa maxay إلهي وحده جاي بقعد قبلي عايزكو حدا يسوع أفريقيا أنت إذا بدن هي سوماليلاند مرنكا أدونكم ما تخرجين أيوه بدل إنه يقولوا ده بربرة سنة تبغى حقاضي ساعة وحنقول ساعة كده هو إن أفريقيا مركز الرئيبه دربن وساوث أفريقيا هذا نرتاي هذا بلا رتاي وحنقول جينا sanadka 2022 ama 13 horaantiisa oo sanad uu inaga xigo iyo labiro in Berbera ay ka soo degaan container ka badan milyan iyo badh container-da wadada qura imika samaysan inta wadooyinka kale la sameeyo ay ka baxi doontaa waxa weey wadada oo jaala ka gudubta oo ah gobolka Gabiley waxa ku soo baxsan doona inay meelayso 1 milyan 800 ilaa 1 milyan oo container meeshii la dhigi lahaa oo la yiraahdo zoonka ka cashuurta ka caagan oo wax lagu kala bedelan karo sida maanta caalamku u shaqeeyo marka Berbera laga soo raro dekadii markabta istiba joogsato ee buuxsanto wadooyinkii kale ee laga saari lahaa ee gudbi lahaana aanay wali samaysnayn tanay dan ku haysataa in intaas soo baabuur 100,000 oo baabuur isjiiday ay soo maran ويجي أما بشي